maxay diintu ka qabtaa waalidka hablaha ku qasbaya guur aan raalli ka ahayn iyagoo waalidku eegaya dhaqaale iyo ninka inanta la siinayo lacag darkeed loo qasbayo inantuna aan isla markaas raalli ku ahayn guurkaasi? weliga waxaa loo sameeyey inuu gabadha u dooro meel fiican, laakiin weli loogama dhigin inuu gabadha iibiyo oo gabadha nimaan ku habboonayn diin ahaan amaba se dhaqan ahaan ama dee da ahaan ba aan munaasib ku ahayn, iyaduna aanay doonahayn in lagu khasbo maaha. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadhu haddii ay tahay gabadh bikri ah oo inan ah kaaradeedii leh in idan la weydiinayo fasax. inay fasaxdayna waxaa lagu garanayaa aamuska, yani hadlin be mar hadday aamusto marka la idhaahdo ma ogoshahay ninka in lagu guuriyo, intaasi ayaa ku filan. wa idnuhaa sumaatuhaa buri nabigu calayhi salaatu wasalaam. haddii ay tahay gabadh guur hore soo martayna tustamar, iyadoo amar baaba la weydiinayaayo waa inay tidhaahaa ii guuriya, xataa aamuskeedu waxba tari maayo. marka gabadhi waa inay talada guurkeeda ay wax ku lahaato. haddii tusaalaan dee ay yar tahay oo ay tahay ilmo yar oo aan guur iyo waxaaba aan fahmhayn, dee weligeedu isagoo weliba dee u eegaya maslaxadeeda iyo dee danteeda iyo meel dee munaasib ku ah dhigaya, taasoo kale u guurin karaa. laakiin gabadh dee qaan gaadhay oo guurkii fahmaysa oo iyadu tashanaysa in la khasbaa ma banaana. haddii la khasbana iyada ikhtiyaar kale inay iyadu yeesho ay aqbasho guurkaasi saa ku socdo, iyo inay diiddo. hadday diiddana guurkaasi kuma khasbana. wallahu aclam.